سبحان الله يعني هكذا شخصية دادور وقفك إنه صاقله وحاسمين يسيد قفك كلا صاحب كلا تهاي وحقوق قرشيسان دقالة هيستيد ماشي كبحيسيد هي تجورسنة يا وقفك جورسنة سيد يا قبل تجورسنة سيد نيك تجورسنة سيد يا واعي مقرح بدنيا هاي حكى هذا حكى خصية فارها وهذا يوتيوب جنالك آمن معلن الموضوع أنا ما أنتي وحو كسب سيا هاي صاحبتنمada sida ognahay saaxiibtinimadu waa shay cajiib ah waa wax qurux badan ma ahan in had baranayna waxa ay tahay saaxiibtinimada laakiin waxa ay noqotay mudooyinkii ugu dambeeyay ayaan wax ka taataabaneena soo dhawaada please like share comment hanaga iloobin hadii aan guda galo mowduucani waxaan ka hadlaynaa saaxiibtinimadu maxay tahay horta يعني صاحبتنمada waa shay qurux badan waa wax cajiib ah qof kasto wuu la socdaa laakiin saaxiibtinimada maxay noqotay xiloo bedelay iyo waxyaabihii ku dhacay ayaan bal wax yar jaka siinayna insha Allah waxaan arkaynaa mudooyinkii ugu dambeeyay saaxiibtinimada inay noqotay isku danaysi mari karnaa يعني qof wuxuu la saaxiibayaa inuu ku danaysto qof wuxuu la soo dagayaa yani in qofkan guriga haysta oo ku daneysanayo waan la saaxiibaya qof wuxuu haysta dhaqaale qof kale la saaxiibay qof kale waxa iga dhaqaalihiisa ayaan kula saaxiibay aad maqlaysaa qof caawinayo shaqniga iyo problemka soo kordha wuxuu yahay wixii shalay saaxiibtinimo lagu qabtay maanta banaanka yaalan qof kasta ogaanayo sarifka iyo ma maqli jirtay sarifka dollarka iyo lacagaha qalaad ma maqli jirtay sidaas amala saaxiibtinimadii maanta loo sarifay yaa shalay qof ku caawiye ama wuxuu ku qabtay ama lacag ku siiyay ama deegaan ku siiyay ama dhar ku siiyay anything wixii doonaan ha ahaadaan yaa hebel ana caawiye aad maqlaysaa subhanallah man sheegashan qad saaxiibtinimadii hebel أنا سو دوي مقالة موسيقى لقرنين أنا هكلا بري hebel mobilka ana u gaday hebel laptop u haysto martaa keegi waay qof oo shafka u tumanaayo hebel ii sheeg maxaa tiraahdaa waxaas ana baray hebel ana sii baray muuse aqoon madaxaygu ku bartay hebel muxuu ahaa qof dhan ashraftiisi inta meel la soo fariista laga dhacay muxuu ahaa lufkayga cuni jiray adigu leeyahay anoo iga daba leefleefan jiray shaatigaan iska bedel ma aragtay oo iga daba gashan jiray kabahaygu ku jiinyaa isaga dhanba يعني شرفتي يقيمي قفك بني آدمي أولها دول كلا لقى شكوب يعني صاحبتنا ما ذي نقطة صرفة نقطة هبل أنا عاوية سوشيال ميديا هبل أنا كاني هبل ما بالكوكو هذا أنا أصوغ ذي أنا كم أنا ميقا أمالو بمقالنا أنا مخشيني سا يعني الدونك صاحبتنا ما اسكو دناسها ويجرت قف كان كل دناسه دقاليس كل صاحب غوري ودقيا كل دك لكن markii uu mustawi aad rabto marka gaarto qofka adnaha ku jisaaran adigana ha ku abaal sheeganin adduunka saaxiibtinimada waxa la best friend aanahay qofka saaxiibanahay best friend aanahay waa saaxiibtinimo aan waxba ka dambeyn waa saaxiibtinimo aan gooy ahaan waa saaxiibtinimo aan dan iyo hawlo gaar ah ku xirneen 10 sano hadii aad kala maqantihiin iyo 10 maalmood hadii aad kala maqantihiin saaxiibtinimada reality-ga ah oo runta ah taas waxba isma bedelayaan 10 sano kadib hadii saaxiibka aragtid hab saaxiib ma sha Allah seetaan fiicanta waa ku saaxiibka laakiin meeshan maxaa dhacay taqaana isbuuc hadii qofka la hadlin maxaa dhacay aantan waa ku fahmi lahay wallahi billaah ya ما يلوس هالسدبة ما أنت أنا ذا أكو شغلة هاي سويتان كذا ما أكو شغلة يعني وقفوا كلي كرادو دارا واي معك هاللسان تدبر الدراسة هذا والله صاحبتي أيام توا كشكي وإيجاك ورجستا معنا أرجع نبوي كبدلتي هو أسأل عيدا إيه وحلا لو هالجرم حال عين
يا صاحبه كلا برتي صاحبتي أيانتا مو بجين أباهيلك لا تسكت الشبتان أنا بكر عليك بحكر وعليك ضلعين وين كلا نقضي يعني وحيابها لو رقم ما أنت صاحبتي لماذا لما رنا عيو وحلا مخلي معهن إيه وحلا أركتونا يا هبل موجودة فالله وكبوبة أنتو ككانت محو كسا شال محو هارتا سيس بنا أنتو كإمادة قف كنا لو أبترنا أنتو كإمادة يا صاحبتي لماذا وحاب نقطه إن يعني أفلجاد اللي إسكوجو بدلوا إن يعني لو قف ممكن إسكود عن وح على وحي أكل هايين أو باجران بنانك إلا كانوا شكب السوشيال ميديا قال محاكا سعد مانت شلولولولولب وحنا ولا سو شبي صور هديتا هدي فيديو هدي ستوري تاع هدي وحترستا هدي لعقتا هدي شوبين تاع هدي درتا هدي غورتا هدي ديغان هدي غبل تاع بتاتا بوخ لا ريبay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala awoor ma jirto wala sarifay wixii dhan way sarifayeen banaanka yaala ilma yar waxa dhashaa og istariga labadan qof ee ka dhaxeeyay shalay billahi alayka ya qisaah jas qofkan la saaxiib la soco wad heshiin weydeen موسى بدين عيسى بدين صلى الله عليه وسلم نول بوددي سهرعه شال اسكو ميد قسبنا وا اسبرتين صاحبه او كليا نقدين ادونك صاحبتنمada way jirtaa the best friend Allah daacada la isku yahay waa la iscaawiya ceeb ma ahan laakiin maanta ana caawiye hebel jaakada wata mart adeerkay u soo dhiibay ya mobilkiisa kaarka ku jiro إله ربي الرحمن باسي ويرد حتى أمريكانية أبنانك اللي سكسولي واحد الإسكور من بجرتوا عيبت الله أستر هدي أد مقشي وحوما أسترنا سومالي صاحب تنمذ ويا يقانان ويقدريان هدي حلاوذني حتى ما هبالي سميه ويترى سومالي محي صاحبه دمر وحاسا قلبه قدام بيا وحد أنا وأفكي سنسوق بيني سبحان الله إلهي بان كمان قالي تدكوي صاحبان waxay ku saaxiibaan wajiye badan koow ra'yiga ku saaxiibaan labadan qof inay isku ra'yi yihiin fikradaha ku saaxiibaan yaani danta iyo iscaawinta ku saaxiibaan qofkan la soco hadad la socon weydina ka tagiya kuwa qasba cid kuwa qasabta malahan iska dhaqaaji ayro gabana laakiin dad kaamira fariisato sagaashankii wixii dhacay asoo qofaysa ila asalka qofka meeshu ka yimid wuxuu ahaa way abagarankiisa horta u dabagalay maxaa horta ka helay su'aal waaye dadkan daawanayna waxa isweydiina qofkan oo iishak maxaa backgroundkiisa la soo tixaayo nafsul xikaaya ee dhan carabta adigana brisas la lagu yeelaya teeda kale Soomaalidu waxa ku mahmaada ushi saaxiibka lagu dilay ama ushi walaasha lagu dilay gumadkeeda abaay meel ku yaala madaxa laga dhacaa bari adigana saaxiibka ku mashquul afaarihiisa gal backgroundkiisa banaanka soo dhig waxbaha u ceeb asturin waxbaha u reebanin nafsul xikaaya dariiqatan wad mari mid kale adina bari kuma siinay wajazaa'un sayyi'atun mithlaha sidii saaxiibka ayeeshay adna bari waa lagu yeelaa haddaad wanaajisay oo sharaftay oo cizeysay adina bari saaxiib kale ku sharafaayo ku wanaajinayo ku ciseynaayo waa kullu laqatmaho waa jafjaftay wax ma u reebin adina bari waa lagu hurgufaa bari adina waa lagu hurgufaaya saas la ku kala imaanaya waa ku jafa waliba mara amla lagu hurgufaa wax lagu guma reebaayo marka saaxiibtinimada sida aan u fahansanahay sida ay tahay farqi weyn u dhaxeeyo waxay u kalifay in mawduucan ka hadlana waxay tahay yani waxaad arkaysaan يعني saaxiibtinimada maanta heerka ee mareyso ayaan u jeednaa dhaqanka maanta ee ku dhaqmayaan bulshadeenu ma ahan bari mid anfacaya ama feedback u noqonayo jiilka soo koraya waxa la arkay saaxiibo iscaawiyay isqadariyay isjecel is-ixtiraam yani hatta illa decisionki isla gaaro go'aanka ugu dambeeyay saaxiibkood ka suga saaxiib saasiisa san damacsanaa ka waran
saaxiibo waxa arka 6 sano 7 sano ismoogaa markay yani ismoogaayeen markay isheleen kadibna sidoodii lee wali يعني دنيا محمانا وناجينا كما دمان بني آدم الحمد لله أشكرك يا ربي يعني وحان كوانينا بلشدينا لأن يردين وحان كوانينا وحيابها ما أنت صعنا يا إنسان أهين وحكوا ناسا عقلك سلامك وحكوا ناسا لقنك إبلشني ما جريتان كذا جريتانك بلشني مدينة ويدعوي عيسى وحا ما أنت صعنا يا سيدا درادين موضوع صاحب هالفيديو أو كلية مكسو كوبي كرو إن شاء الله وانجعلها إن دب وقصو هذا هدي إله إدمو أذن كان رأيينا يوصو عاوية وحان أصو دوينا يا أو أنسي وناكسن أصو دوينا يا صاحب بدا أن هالكان اسكو براني سوشيال ميديا صاحب بدا بيج كيغا قاسك إغلاء أنا وصو دوينا يا وحالي صاحب يالو صو دوادا waxaynu nahay saaxiibo cusub youtube ka share garee la garee subscribe ha iloobin fadlan qiimaha saaxiibtinimadana yani hal ilaaliyo qiyaana jirto waxyaalo badan jirto oo lagu sameeyo saaxiibtinimada dana gaar ah iyo sababo gaar ah dad u isticmaala jiro insha Allah waan ka soo hadli doonaa hadii Ilaahay idmo hadii aad ka heshay mowduucan commentiga iyo gureeb waxaan mar kale ku celinayaa saaxiibtinimada sida aday amoodi maahan waa sida ay tahay oo loo isticmaalo saaxiibtinimada sida adiga aad aaminsan tahay qaladka isdabagale background-yada banaanka la iska soo dhigee yani maxaa tiraahdaa danaha qaaska la isku watee ee sheeg maxaa tiraahdaa qofkan guri qurux badan buu degan yahay gurigooda rabaa inaan sawir ku soo galo aan la saaxiib iyo maxaa tiraahdaa ee sheeg qofkan dibaddu jira waxa rabaa inuu dhaqaale iyo wax isu dhiib aan la saaxiib iyo qofka kan maxaa tiraahdaa isha hanti uu haysta hantidiisan kula saaxiiba ma aha saaxiibtinimada way ka sareysaa intaas way ka weyn tahay qofka kan aad la saaxiibaysid waa qof aad noloshaada ka qayb gelinaysid sidaas daraadeed daawadayaasheeda qiimaha badan waxaan idin leeyahay saaxiibada hore dib u fiiriya dadka idinka waaweynaa wax ka weydiiya saaxiibada يعني saaxiibada hadda jira ee isku wanaagsan ee sharaftii ciziga isku haayo fiiriya ha fiirinina laba qof iyo saddex qof Soomaalidu waxa ku maamaada badda hal malaaya qurmiyo يعني hal qalad uu qof galo ama qayb yar qaladaad ay galaan ayaa waxa laga yaabaa in dadka qaar kalsooni daro ku dhacdo saaxiibtinimadu waa wax qurux badan waa wax wanaagsan يعني saaxiib la'aantiisna lama socon karo qof aan saaxiib lahayn dee anigu waxaan ku tilmaamo garanayo laakiin saaxiib la'aantiis lama socon karo fikradda saaxiibkaad u baahan tahay aqliyadiisa u baahan tahay kaa uu u baahan yahay hadalkiisa u baahan tahay haddana ma ahan inaad saaxiibka marba korka ka saaran tahay waqti kasta aad hadlaysid waqti kasta waxa weydiinaysid bilis qofka jaanisii fursad sii qofkan saaxiibka salaan la hadal fikrad weydii caafimaadkiisa wareyso adigu matii dhakhtarkiisa qaaskeed ee daweynaya iyo managerkiisa hantidiisa iyo wixiisa kala maamulay matii saaxiibo waxa la arkabo ku soo dhaxgalaya shakhsiyada qofka xataa ma ahan subhanallah yani halka shakhsiyadaada raba qofka inuu soo galo waxa sameynaysid qofka kala saaxiibka la tahay waxa ku qorsheysan dhaqaalaha ay haysatid meesha ka bixaysid yaad guursanay yaa waa qofka guursanaysid yuu yahay gabadha aad guursanaysid ninka aad guursanaysid yaa waaye ma qurux badan yahay waxa ka galan waxa ka khusaya faaraad saaxiib qofkan kuma tihiin ina dhaxdiisa gashay shurululub ina ku aruurtay saaxiib kuma tihiin kaliya waxa saaxiib ku tihiin fikradiina iyo wada hadalka iyo inaad dadka isaga dhowdihiin kaliya ma ahan qofkan ina interkiisa dhax gashay dalaq sa u sii socotay marka dib ayaan uga soo hadli doonaa mowduucan insha Allah waa mowduuc weyn fikradihiina muhiim ay yihiin qaybta commentiga ayaan ku balansanaa hadii Ilaahay yiraahdo inta mowduuc kale ku kulmi doono waa walaashin abina macalin oo idin leh like share comment waa walaashin abina macalin oo idin leh waqti waa idin wacnaa